iyadoo bilihii ugu dambeeyay iyo toddobaadyadiina weydaartay ay qaybo ka mid ah gobolada dalka ay ka socdeen dagaalo u dhaxeeya dadka deegaanada is abaabulay iyo sidoo kale ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya oo garab ay ka helayeen kuwaas oo deegaano dhowr oo ka tirsan gobolada Hiiraan iyo Galgaduud lagala wareegay al-shabaab ayaa dhawaan waxa shir weyn isugu yimid beesha Midullood oo ka dhacay magaalada Muqdisho. shirkaasi waxa ka qayb galay madax dhaqameed ogaasiyo iyo sidoo kale maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha hogaamiyo madaxweynaha Hiirshabelle iyo mas'uuliyiin kale. anjadaha shirkaasi waxa uu ahaa sidii beeshani ay qayb uga noqon lahayd dagaalada lagula jira al-shabaab deegaanada ay degaana ay uga xoreyn lahaayeen al-shabaab waa sida hadalku dhigeen dhammaanba qaybihii kala duwanaa ee ka soo qayb gala shirkaasi. qaar ka mid ah dhaqankii ka soo qayb gala shirkan madaxdii kala duwaneed ee goobjooga ka ahaa ayaa khudbado kala duwan halkani ka jeediyay oo dhinacyo badan ay kaga hadlayeen. waxaan salaamayaa dhaqanka boqor Cabdullaahi Geedi Shadoor oo fadhiyo. waxaan salaamayaa dhammaan wasiirada iyo akhyaarta kalentood. waxaa meeshaan ka hadlay saraakiil iyo waxaa ka hadlay xildhibaankayga marna sargaal ah xildhibaan Xaadoole runtii war kuma dhinna meeshaan. waxaan rabaa ciddaani waa soo daahday waa Midullood waa imaana laakiin waa soo daahaana leeyahay markii horantood. runtii ayaanta waxaan ka shaqaynayay howlahan degdega oo gurmadka meesha la yiraahdo Hiiraan 30 maalmood aniga aan magacawnaa. Hiiraan waxay xureysteen 500 kiiloomitir wax ka badan. runtii annaga oo Midulloodane runtii saakaan raashin diray degmada Raagaceel aan u diray waxay joogtaa waa arkayseen Raagaceel lama dhaafi karaa la igu dhah. waxaan rabnaa nimayahow inaan isku tashanno oo dhulkii la xureeyo runtii gargaarkii iyo xatee wixii kale loogu tala galay waa gaari la yihiin. dawladda badanaa noo soo jawaabay oo yiraahdeen waxbaan qabanaynaa. dawladda Kuwait waxay ku yaboohday 150 ceel. runtii Midullood hadii dhulkiisa u xureysnayn dhul kala laga dhisaa ogaada dhulka laga qoda. runtii waxa loo baahan yahay waa biyo waxa dhibaatada haysato abaarta taagan biya u asiyo. haddii marka aadan adigu diyaar ahayn meesha diyaar ah laga qabanaya. waxaan rabnaa dawladda walaalaha ahaan nahay ciida laftikeeda Malaysia waxay ku dhawaaqday inay qaban doonto oo ay kalluun warshad kalluun aad u weyn dhisi doonto. dhulkii kalluunka la idin kaaga dhisi lahaa cadawaa heesto haddii la rabo in la qabtane Soomaaliya dhammaan annaga mas'uul nahay waa meeshii laga qaban karaa laga qabanayaa. horumarka la sameynayo oo gobolka laga sameynayo wuxuu ku xiran yahay gobolka tagiisaan. ayaanta waxaan ka badar u rarayna meesha la yiraahdo Buulaburti. runtii badar diyaarad la saaran qaadayna waa maqasheen oo maleynaya arrintaas aniga aadan uga cadhooday aadan uga qeylshay. dhulka haddii la mari lahaa wax badan la qaban lahaa. raashin aad u fara badan oo loogu tala galay dadka abaaraha ayaa yaalo. haddaa dhulka xoreysataan raashinka halkan yaala halkan bisoo mari karaa. haddaa laakiin xoreyso weysaan kulley aniga Jowhar oo 9 kiiloomitir jirto diyaarad ku geymaayo wallahi. idinkaan idinka rabaa inaad xoreysataan. waxaan idin leeyahay runtii waxa waayay soo sheegay xildhibaanku ama generaalka waxay ahaaday xoog waa idinku jiraa laakiin hagaraa idinku jirto. runtii Midullood waxaa la rabaa hagarta inay ka baxaan inay wax qabsadaan. dalkii oo dhan wuxuu u xayiran yahay dawladda Turkiga waxay ogolaatay inay samayso buundadii ama biyo xireenkii Sabuun oo runtii ay rabtaan lacag aad u fara badan inay ku bixiso. arrintaas waa nagala soo xiriirtay amniga ma soo kartaanay dhaheen amniga ma soo kartaan. ilaahay idinku dhaarshe buundada Sabuun oo ogtihiin iyo mataqaana biyo xireenkii Sabuun oo loo baahan yahay inaan samayso weyno oo difaaco weyno runtii ciddaanay ceeb ku tahay arrintaasina socon mayso. waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga akhyaaray waxaa la rabaa annagu hadda waxyaabaha noola xil saara waxaa ka mid ah gargaarka degdega ah iyo ka soo kabashada aftar gargaarkaas degdega ah. haddaadan gargaarka degdega ah dhulkiina la gaarsii karin oo haddii xatee markaasi dhib ku baxo aanan horumarkii kale la gaarsii karin oon webigii keligii oo weynaayo bixireenka leedin ogolaya leedin dhisi karin oo aanan mataqaanaa xaw warshad leedin dhisi karin hadda mas'uuliyaddaas idinka qaadaysiin. waxaan rabaa haddii Ilaahay yiraahdo inaan iskaashano
annagu haddii ilaahay yidhaahdo waxaan ku dadaalaynaa jenaraaladu hadday dhaqaaqaan waa idinka daba dhaqaaqaynaa dadka meesha dhibku haystana waa la gaarayaa abaar xunaa jirto wax badanaa loo hayaa raashin badan iyo gargaar badan iyo howl badanaa taallo u diyaar garooba inaan dhulkeena xoraysan aad iyo aad u mahadsantiin bismillaahi raxmaan raxiim gudoomiyaha gobolka banaadir xildhibaanada qaranka walaha wasiirada bulshaweynta meesha fadhido culimadiinka dhaqanka ay ugu horeeyaan duubabka gabdhaha iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladan meesha fadhido qaraabada meesha fadhido reer Mudullood waxaan idinku salaam salaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh goosh ujeedadada waxaa la sheegay boqorradii iyo dadkii igu horreeyay dhammaan ka hadlay nimayhow waxaan idin sheegaa wala xirsan ma jiraan marka waxaan inaysaan naqahayaan aniga waxaan ka mid ahay raggii dhallinyarada ahay ee saraakiisha ahay ee gacanta kala diriri jiray aniga iyo niman saraakiil oo meeshaan fadhiyaan oo jarannaa hadda dhulkaan ragga ka diriri jiranna waxaa ugu horreeya ninkaan daacad oo meesha fadhiyo guddoomiyaha ee madiine ahaa jira cawi casir nimankaasuu la diriri jiray waa ku naafoobay waa u jeediin rag badan oo saasaa dhulka ka hoos ku jira dal kastoo nabada iyo deegaan kastoo nabada ee qurax wehelaa ee dadkiisa horumaray haddaad aragtiin amba qurax wehelayahana dhiigaa u daatay ragaan u diriray maahana iskama imaan waa aaminsanahay welina waa aaminsanahay inaan idinkoo aanan ka kicina nimankan meelay ka yimid aanan la aqaanin ee qaarkood afka soomaaliga ku hadlaayo qaarna ay yihiin ajnabi oo aniga aan hubo intaan kula diriri jiray niman madooba iyo caddaan dheerdheer oo dheerdheer oo dirbiyaanka dheerdheer oo meel u sudaan la aqaano ayagaaba waxyiin la aqaanab haddana gooftay ku jiraan oo dhulkaana inta soo marayno inta laga soo baxayaa gooftayni dhulka anugu inaan ku neefsanno ee u dalxiisno ee magaaladan haddaan ku cabursanno ilaa xardheeri cidu degtaahe iyo inaan u sikana la rabay ay joogaanaa laleeh maana ay joogaan walax la qaada karo inaysan ahayn intii wax og waa ogtay wax nagu dhaca ma naqaano laakiin waxaa laga yaabaa wax kasta oo adduunka dhaco maalinay leeyihiin waxaan kaloo rabaa inaan halkan uga mahad celiyo nimanka walaalaheenna oo reer hiiraan iyo reer mudug dhulkaan nimanka dagaalka hadda ka wado ayagana aadaan ugu mahad celinay waxaan kaloo halkan uga mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maalinka uu ku soo laabtay waddankan ku baaqay in dalkan uu kala dagaalamayo nimankan alqaacidada caloos oo shaqaystaha ee waddankayna degan Mudullood waxaan idin leeyahay waxaa loo baahan yahay xurayn dhaba shacabkayna waa baaba'een layskuma hayo dhibaatay 24 saac ku jiraan layskuma hayo nin kastoo mas-uula amba dhaqan ha ahaado amba mas-uul dawla ha ahaado amba wuxuu rabaa aadeena walaxuu qaada kara maaha waxaa og tihiin taangiyaalnamo wataan nimanka dhulka joog walba haddana dhibkana haysta idiin sheega qor aakaahay wataan in walax lamida waxaan haysanay heestaan asow adiga kaagiyo maan ku yaal gurigaaga u soo koo wata inta ku yimaado rabaa inuu gabartaada iyo habartaa iyo adoogaa iyo maalkaaga iyo hantaada uu ku hantiyo walax socaysa miya Mudullood waa soo noolaa jiriyey dhulkaan ragaa u soo halgamee ha ku ceeboobinay hadda waxaa dhaanto inaan iska dhimanno in la wada dhintaa dhaanto qof noolaaysa ma jirto yaa dadku waa dhinto waan qofta waqtigeeda galo waa dhimasho weyn qofta waqtigeeda galo waa dhimahe ilaahay yaa wax dilo waxa arkay nin maskiin oo shacab oo sacboolay ee inta qabtaan ee madax ka gooyaanaysa madaxiisa meelaha wadaan war qof ninka ragga amba madax ka gooy amba madi caloosh uga dhif amba ishaag dhagax ku dil haddaa dishuwaaba dhintee xaw islaama macnaha laga cabsado ya ha laga cabsado yeeyta qofta ka cabsiiso ma ishaag adiga waqtiga inaan dhaafid adogaan aad geeri intayna ku wada xukumana waxaa la idinka rabaa
goboshaan iyo inta soo qabanqaabisay waa ka mahad celiyaa dagaalkan waxaan anigu horena weligay waa u sheegi jiray haddana waa sheegaa dagaalka aan galno dadka aan iska xorayno midaan ku jirna waxaa noo dhaanto dowlad la'aanta muggal ahay dadka soo hana qaadan ku jira aniga magaalada muqdisho hawiyaa joogi jiray heer rebelaan in laga dil iyo nimaa biriga mahaas lagu dil iyo waxaas waa la maqli jiray baabuur weynaa meel ku qarxaasa 10 kun oo qofood ku dhimatay intaasoo kun oo qofood waa ku qasaartay waxaas dhici ma jirin waa xilliga dowlad la'aanta ogaadha yaa wax la suga meeshan xoolaha yaa la qaadaha ciidan ma qabaan dhaqaale ma haystaan war dadka ma inay dhaqaalaha ka qaadatiin dadka inaan dhaqaalaha ka qaadano sida boqorka hadda sheegay yaa ee hadhowna loo celiyo xoolahooda haddii la guulaysto heerkaan dhiibi karin waxaa la sheegaa maamul suuqan bakaaraha iyo dadkan dhulkaan oo dhan lacag lagama qaado cashuur kama qaado dowladda ayagaa ka qaato annaga markaan la dagaalamayna casrigaas ma gaarsanayn ayagu waana ka awood yaraan intaan hadda laakiin waa soo socdaan waa u jeedin waa soo socdaan waa soo socdaan waa soo socdaan waa soo socdaan inay laakiin heerkan gaaraan dadka gobolkiisa waxay dhahayeen nimankaanu amay muslim amay diin islaam wadaan ya quraanka aniga waxaan ahay subacley ana moogta quraanka waxaan ahay dadka oo subacleyda oo quraanka yaqaano laakiin cilmiga waa dhageystay si fiican aan laakiin آيادان سبع ودق ساجد إلهي وحولها أشعة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف هو حاجر له ومقارنة لا دري تقال كيان لقلين والغدا ماها وحانكم آدم إلين فإذا ذهب الخوف مركع وحينوع فيه رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت وحينوع بصايا سيده ولا ملك ميت كسوكر ركسد يا ملك موتك إنه سوكرك سعملوا عبصان هدي فإذا ذهب الخوف سلاقوكم بألسنة حداد هدي تقطع عبصدنا حسان يا هداد وقال أنا ما لك سوي جبش أنت أنك سوي أنت أنك سوي حي عاقلة وردول كان فيري وحصلوا ما بانو دت وحيان ورحجرو خوفك إيه هو عبسده وهلا يا نك دي مرة نوار دمها نك يشتاق نورار لكن مدانو وحاد دانت إنا دمنا دانتو دمشدو وحوايا فرعد دوايا دتك واد دمنايان لكن قيام وين اللي ويديها أنا جو حوق كان له أو دت كان له مرق كان له إن وحاسو كان إنتن سوكر روكسدان نن أفكيس وحكور ما لا كان أو قفتين ده الرجو أو ده العكين عشور كان وعكين هذا يو قالتين وباقل هاي لكن هذا ما دام أنا هذو من أنا جوا باقي دري مايو واحد بدنا رجعنا وهجمياش أنت سورو كتير ميكروفون كان يشجعن إن ما كسر الله دري رايو وعينا نقطين إسكسي جوجان واحد بدنا عيدمو دولة انتبه حين يدك الشعب كده متى كان الشعب كويس شغال لا هنا يدين شيء أنت الذي ما نقتل الرسالة إنك سو جبا قال إنك سو جبا تسمع هذا حواي مركز الصوت جبا أنت ما دين يدك كيني قلقلايا سيلين شلع ده بياسي سي أنت وحاسس قبل أنت هنا قدام بيسين اللي سوي جبهن الأذن مك قبل أنت هنا قدام بيس يعني اللي سوي جبهن باقة يشاك محيي هذا المدة اللوقة بهاي أنا كوا مكرافك قدام بيان أنا أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرتن ماشى دوبن ولا يقان وحد بدبادة قرن ساعدي كوبناي أي كوسمايان أو شيء قاد أهرك عليه وادو قيدين. هدي لكن هاجر رجرته أو ولي لوك لابنتهاي وحواي جوجلها نوال لقى رومات دونا السويمات كانوا لقى جنب دونا معناها بول حفتان كجور دونا بول حفتان دم نجلي ماينو أنا أساسا قبا على كل حال مركز جوشان جوش كل حكتنا ما كاسات دقايق جدول كنا وحصاد ديارنا أيو جنرال قام الدولة هي أخيار تيسة أيها صوت ديارنا أيو أدي لا يرادو صلادين تدقن كنا ما أنت وحنا فرفديو بقر عبد الله إيش علماء شعل وجيس نقل الجوجو محوها يا أخيار تاسن أضياء شاسن يدري محدين حسن أفرحيو أو نل الجوجانا وحين نقولنا أيام بيسكي أضياء مرجعة
gabdhiya oo jawaahir baarqab iyo gabdhaha halkaas fadhiya ka mid yihiinna ayaguna waxay noqonayaan kuwii calanka babinay noqonayaan oo ciddii soo daada baasha ku tuuraayey saabaya dhagax tuurna lagama dhammo aniga marka waxaan rabaa inaan intaas ku soo gebagabeeyo saas aan shaqada u qaybsanno maalintaasna aan noqonno dad dhaqaaqa aan noqonno haddaan dhaqaaqno soo naqamayna waa ognahay laakiin dhaqaaqaynaa waqti qaadanaayo waana hubaa maanta waa maalmo arbaca soo khamiis miya khamiis waay bishuna waa 22 u malaynayaa sanadka intuusan dhammaan December 2022 deegaanadayna waa xur shabaabna ma haysto haddii ilaahay yidhaahdo cadowguna ma haysto xuray noqona haddii ilaahay yidhaahdo laakiin waa saan u sheegaynaa haddaan ka dhabayno waaye cabdullaahi macal mukhtaaraana koofida asagana askartaan u gelaynaa haddii ilaahay yidhaahdo markaasaan leenahay jabadayntaada aadna ku fiicane adnana horkacaan leenaha soo saas maaha waa dhammaata cabdullaahi adiguna waa dooran tahay garabkaaga allaha galo marka soo dhowaada kheyre waa mahadsantii mar labaad mar saddexaad waxay ila tahay mar haddii dadka la magac dhibay inuu mudulood yahay midka ugu darajada weyn iyo midka ugu darajada hooseba 100% ku salaamay intaan tiraaya waxaan islaahayaa waqti ku dhaafin qofna ha isku halmaamin dadku waa gadaalkan ma ogtahay dadkii ficil oo bartayo cidaanu ma ogtahay ficil ma aqaajin waxa dhacay iyo dhageysatay ka tagi jirta yaa dadka hadhow ficil ugu herinaan islaaho ha isku dhumin dadkan isla labada meelood ka qabaa raalli ahaada hadalkaygu waa gaaban yahay وانا فرحسناhay waxaan ku faraxsanahay dadka la isku keenay amba la isugu yeeray magaca muduloodna lagu tilmaamayo ku faraxsanahay mar haddii mudulood la magacaabay magaca mudulood kuma koobna magac Soomaaliyeed oo u dhigmaan ogahay inay raalli ka yihiin waa ogahay haddii meel lagu qumo amba laga hadli tagana waxaan filaa inay ka hadli doonaan dalka iyo dadka iyo dawladda oo mugaas joogtaba intaba inay ka hadli doonaan una banaan tahay u malayhaa meel mudulood kaliyu joogo ku koobnaa ma doonto saasaan isleeyahay haddii alla ilmo waxaan ku daraahoon hadalkayga ku gaabsaha kuna daraaya mudulood waxaan rabaa hal ballam inaan siiyo dhalimaan ahee dardaaran in lahoo hal xabaahaan sheega nimanka hadda laga tilmaamayo oo cadaawada lagu tilmaamayo runna ah oo gobolna shisheeyaha yahay gobolna ilmo kuwaanyaha wareeray yihiin ayagana hadal leeyahay waan iska soo gaabiha oo ma jecli dadka inay waqti badan ka qaadho ma jecli muduloodka horta hal xabaan kula dardaarma haddii alla ilmo Soomaalidu waxaa la yidhaahay mahkama tagtee afar qodob nimankii afar ka aqaan waayaaho niman ma ahana dadkii ka aqaan waayo yaana gefina gabdhaha ku jira niman haddii la yidhaha gabdhiyaa soo baxaye dadkii ka aqaan waayo afar walxaad afar kale dadkay ka aqaan waayo isaga darmaanu ma liibaanana la yidhi waa la hubaa galabta inaan soo baxnay taladaanu inay socoysana waa xaqiiqa maxaa jira muraadka la leeyahoo dhammaanan qof dulmay bini aadam aan dulmaynaa huma jiro ilma dhadhalana haddaan gurigaayo ugama carari karnay ilmahaanya xaaskaanya haweenkaanya ugama carari karnay waa u naqaynaha waa la hubaa meelo jiraanna waa la tegi doonaa laakiin muduloodka ballankiisa waxaan ka wadaa afar uga darbiraa la yidhi ma ogta afartan namarka koobaad waxaa waaye geesiga iyo fulaga nimanka kala aqaan waaya dagaalka kama liibaanaan waa inay geesiga yaqaanaan fulagana yaqaanaan oo isan isaga derbi iyo dib u dhiskana ha lagu daro maxaa yeelay deegaanada aad ka timideen waxaad og tihiin ma lahan wadooyin ma laha iskuulla ma lahan jaamacada ma lahan dadka Soomaalidana haddaad dib u milicsataan markii dhulka hadda aan sheegayno magaalooyin waaweyn ay ahaayeen meelo tuulo yaryar laba jiingadood ay ku taallaan maanta magaalooyin waaweyn ah waa dib u dhac runtii dadkan ku dhacay sidaas daraaddeed anigu waxaan leeyahay dadkan ma jirto xoog yarana nama hayso xoolo yarana nama hayso cadowga al-shabaab wuxuu u baahan yahay inta laysu yimaado war laysu sheego ku tegi ma
wuxuu rabaa in faraha la isi saaro hadday daacad tahay oo galabta meeshaan aad u soo fadhiisateen in la iska dhiciyo anigu anoo ku hadlaaya magaca saraakiisha meesha fadhiya waxaan ballan qaadaynaa inaan kaalinta nooga aadan inaan qaadanno dadkana aan hor kacno waa sharaf darro maanta dadkan meesha fadhiya maamul goboleedka Hirshabeelle oo 90 kiiloomitir caasimadan Muqdisho u jira ninka mas'uulka ah oo maanta meeshaan fadhiya marka uu rabo wuxuu raacaa diyaarad asoo ku tagaa meeshaas wa ayaan darro marka aniga waxaan rabaa hadal haama lagama buuxiyay Soomaalidu tira waxaan rabaa inaan wax runa aadno cadawga al-shabaab iska dhicidu u baahan yahay way iska dhici karnaa dad iyo qalab intaba waa haysanaa xoolo waa haysanaa waxaan rabnaa inaan arintaas u dhaqaaqno waqtiyada soo socdana arintaasi inta dadkan maanta meesha fadhiya gudi la baxno si farsamaysan qaabkii wax aan haysano la isugu keeni lahay oo loo habay lahay ha laga shaqeeyo cadawga al-shabaabna inaan dadkan maantay meelo badana dad Soomaaliyeed ay kala dagaalamayaan kuwa ka hor deegaanadooda ka ceshadood ogtihiin waxaasoo dhan waxa waaye waa fursad runtii daahday dadka hadda ka hor mahmaha waxaa la sheegi jiray waa imaanayaan waa soo daahayaan inaan daahno sharaf maaha sharaf ma noqonayso dadkaanuna ku xuroobi maayay waxaan rabnaa inaan cadawga maanta wuxuu u baahan yahay afjarid inaan soo afjarno intaas kadib waxaan rabaa inaan halkaan uga hambaliyeeyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku jira hawlgallada waxa guulaha ay gaareen ayaga iyo madaxdoodaba wixii ay qabteen waxa kale oo rabaa inaan halkaan uga hambaliyeeyo maamulada iyo deegaanada ayagana dadkooda ay isu diyaariyeen cadawga al-shabaab inay dalka ka xureeyaan ayagana halkaan aan uga hambaliyeynayno intaas kadib waxaan hadalkayga ku soo gunaanadayaa annaga haddii aan nahay saraakiisha ciidamada qalabka sida waxaan ballan hortiina ilaahayaa hortiis aan idinka ballan qaadaynaa inaan wax hagaruhu aysan nagu jirin saacadan wax laga ka bilowdana aan diyaar u nahay inaan cadawga jaagada ka soo qabanno cadawyo xaqiina ka fakan iyo ninka jaahilka agti kala aqaan waayana diinka ka baliibaanaan maxaa jira aqoontiya ka baqan dhinaca aqoonti jirtana culumadi waay ayagana lama ictiraafin taasuna iyo isaga kaanya derbi muduloodow inaan liibaanaan heer rabnaa inaan adkaanana waa rabnaa dalkana haddaan haddii la yidhaha magaca mudulood waxaa soo gelaya xukunka ugu sarreeya nin muduloodahaa fadhiyo soo gelaya halka dhexe nimaa fadhiya halka gobollada nimaa fadhiya dadka fadhaahuna waa dad Soomaaliyeed u fadhaa maaha mudulood uma fadho labadaas haddaan ka gudba xabbo labadii kalena ii dhiman tahay ninka caaqilka ah iyo ninka aaqa ah oo dabaalka ah labada nimanka kala aqaan waayeen aqliga ka baliibaanaan iyo tartiibta hadday isaga darmaan kadib waa dareemaya isaga kaahin dermin muduloodo midda afaraad inaan dhubi rabaa buu filan dhalimaasa awaasa imaan doonta haddii allah idmee haddaan caaqilkii sheegay oon geesigii sheegay oon fulagii saldanad wax kala waay saqayga waay haa kaaga maray dhudhow waana mahadsan tahay ninka saqiga ah iyo boqoylka hadday kala aqaan waayaan wax dhaafka ay haystaan kuma liibaanaanoo wax kuma qabsan karaan maxaa jira boqoylkuna waa ceshaha ninka saqiga hayoo bixi lahayna ma haayo muggaas dareen sow maaha taas haddaan afartaas walxaad haddaan ka bagsoono ogaadha waxna qaban karaa ma jiraan waxaanan hor kaci karino ma jiraan dadkuna haddaan horjoogow naga rabaa inaan horkacno uu rabaa haddaan horkaci weynana nimaa yidhi yaa layidhi laba nimaa dirirta maanto dagaal lagama tegi karo mugmuge haddii dagaal ma jiree labada nim hal waa waxtar halka kaleetana xoogaa lama yaqaano waa dhalinyarya halka xoogga badnaayoo loo filayo qofku aadda inaysan jirin aan dhulka lagu dhufto dilow maaga asagoo gacnaha ka qabta asaguna waa dili waaye waase ku fadhiya markii laga kiciyey oo la kala qabtay nimankii uu ka dhashay yidhaheen gacantaa gooda kuma nafisita ninka xadu dili weye waaba dilsatee maxaa kugu dhacay ra'yiga taga yidhi hebel halka xoogahoo ku jira ninkii xooga ku dibriye helay
ee haddana xooga ku dila uga soo heray oo cayaar maaha ninka uga soo heri kara haddana asaga yaaba kan hoogi marka waxaa la rabaa xoogaa dadka ku hogaamino iyo xoogaa dawacada isaga dhicino iyo xoog masaakiinta anigu wax walba inaan yeelana nala rabaa waxa aan yeelan lahayn taas ballankeera halkii ballamay igu dhex jirtaa taas mahasaan uga baxa qoladaan la leeyahay shabaabka oo dhibaatada dadka ku hayso guryihi nagala soo baxo ilmihii iyo haweenkii naga raacdaystay inay naga raacdaystay iyo in kale firaaqaanan helin aniguna isma helin haddaan waa ishelna firaaqana waa helna dowladdiina waa haysanaa minay goboltaha waa haynaa minay caasimadii tahana waa haynaa minay madaxweyne tahana waa haynaa minay golaha golo doonta oona ku jirin uma jiraan marka saakay haddaan beriga waxay weyno amba saan agaasimi weyno amba wax iska celi weyno goorna lasoo baxaaya male waa berigay u dambaysa hal haddaan ka dhashay yaanan ceeboobino taladu yay naga xumaan koow waxaan ku daraa nin baa iyana ma fiirsha beri saas u arkay oo say u yaallaan u begay say qolada kale ugu socdaanna waa u begay si looga gardaran yahana waa ogyahay waa shirbay cidda haddii la kala qaado xoogaa cidda ugu shiribka yaraan ku jira aan ku jirnaaho magaca haddii saas la yidhaha dadku waa naga shiri badan yihiin kaleeto dadka naga waaweyn waa naga shiri badan yihiin waa naga shiri badan yihiin waxau yidhi dududkooraan ka dareemo galabta say yeelayna warka dududkooraan ka dareemo hadba duulba uga daraayaanu haddaa saad isugu timid eradayaahe cadow inaad uga daraysiin anaa huba waxaa farxi doona ninka idiin naqda marjac oo farxi oo ku farxi doona waxaad qaban doontiin waa farxa ninka cadow idiin naqa doono cadowgiinaahuna waa naxa haddaad cadowga ka dhexiseen marjacana ka farxisiin muslimka dhammuna waa liibaana anuguna waa wada liibaanayna haddii alla idmo muduloodow taladaas galabta maha loo soo fadhiistay duul qayr qabaa ka talshayo muk haddau isku kaayeen waxay ka gadaal taladu ma og tahay qoftay ku jirtaa keeni doontee marba haddaan isku nimid ka gadaal sidaasay ku socaysaa haddii alla idmo waa mahadsan tihiin cadaawadaa dhellahoo tilmaanteera ambaxa ayaa waxay tahay ninkaan dalka ku dhalanow intaana kuu imaan iska tag mahad geli laheed adaa gelaaya gal mahad ka bixi laheedna ka bax ha nugu sugin gurigaay haddaan nugu sugtana waxaad aragta iimaanso ilmaha arruurahoo kuwaayahoo dadka ku jira sow maaha waa la hubaa isku dadaan nahay xoogaa ilduufaha idin galee maandheeskow ka hor imaada dadka waana kandhaha gacnahana kor u taaga mugaad kor u taagtiin qofta idinku soo afnaqda waxaan leenahay dadka bannaanka loo bixi jiray ku jiraane annakaa si waliyeelid waa loo jawaabi doonaahe idinkuna basaad u dhalateen naqdha deegaankan dadaan u dhalan oo shisheeye ah oo dad kale soo diray inuu mu kale ka caysho ha suginina intaasna kuwaasaan ku dardaarmaha idinkuna waa mahadsantihiin